Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ceeb Lacuud. Maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego qisooyin istikfaarta ku saabsan. Haddii aad rabto risqi ka yimaada meel aadan filanayn, ha joojin istikfaartan. Sheekooyinkan ayaad ka arki doontaa. Laakiin istikfaarta ma aha inaad tiraahdo markaad firaaqo hesho oo keliya, waa inaad ku dhegtaa labada gacmood aan carabkaadana ka joojin. Ramadaan waa bisha istikfaarta. Haddii aad dareemayso culays iyo walwal iyo albaabo xiran, badso istikfaarta qalbiga ayay dejisaa, risqigu wuu kuu furaa, albaabada waa kuu furmaan, dhibaatooyinka way kuu fududaysaa. Haba ka daalinba maalin iyo habeen. Inaan idiin sheegan uma baahnidiin bishaan inay tahay bishii quraanka, waa quraan akhriska inaan badino, inta yarta aan naqaana xataa inaan ku soo celcelino. Allah ka dhigee qul huwallahu axad, suuratul faatixa waa inaan markasto aan toos u akhrinaa, aanan kala joojin. Marka hadda qisooyinkeeni aan galno, qisooyinkan waa qisooyin istikfaarta ku saabsan. Aad iyo aad ayay idin anfacaysaa. Istikfaarta waxyaalaha noloshaada ka bedeli karto waa yaabaysaa. Marka qisooyinkan aan idinkugu bilaabo, qisada ugu horeysa, maamo da ah ayaa shaqo dowladeed ka shaqaynaysay. Mushaharkeeda aad buu u yaraa, gurigana kuma filneen inta soo gasha, laakiin waxay shaqada u sii waday caruurteeda dartood. Maalin aroor ah ayay shaqadii u baxday, saacadda markay ahayd 7:00 subaxnimo. Degdeg ayay guriga uga baxday, boorsadeedii maysan qaadan. Markay gaarigii kortay ayay ogaatay inaysan lacag wadanin. Waxayna ku tiri darawalka, shaqada markaan tago ayaan lacag ku siinayaa, shaqada horta bal igeey. Wuxuu ku yiri, iiga deg baskayga. Bartamihii ayuu ku dejiyay meel cidlo ah. Qas waxay tahay meel cidlo ah, ha igu dejin, Ilaahay ka baq. Waa subax alisay ah, wax soo socda meelahan ma laha. Waxaan kaa rabaa inaad ii naxariisato markaan tago shaqada, inaad lacagta aan ku siiyo. Cidna ma joogin jidka dhan. Wuxuu yiraahday deg. Way yaabtay, meeshii iska fadhiisatay. Waxay qaadan weyday waxaan uu sameyninkan 2 saacadood ay iska fadhiday meel cidlo ah. Haddii meeshii shaqada aadi lahayd, waxay u socon lahayd 2 saac oo dhan. Marka meeshii iska fadhiisatay wadada dhexdeedii, waxayna iska bilowday istikfaar. lacag maysan haysan, taleefonna ma haysan, cid ay wacdo xataa iska badaayay. Waxay ku celinaysaa astaqfirullah iyadoo ogeyn wax dhici doona. Kadib nin gaari wata ayaa istaagay horteedii, weliba gaari fiican oo private ahoo uu watay. Gacantiisii ayuu wuxuu ku wada boorso lacag buuxda, wuxuuna siiyey iyadii. Way naxday, waxay tiri walaalow lacagtan xalkay ka keentay, ma soo xaday, maxaad ii siinaysaa? Ninkii wuxuu yiri, lacagtan waa risqigaagii. Wuxuu ku sii yiri oo kaleeto, waxaan u qorsheeyay inaan xaj aado sanadkan, laakiin safarkii waan ka baaqday. Markaas ayaan go'aansaday lacagta xajka oo dhan inaan sadaqo u bixiyo. Habeenkii ka horeeyay ayaa niyadda igu soo dhacday arrintan. Qofkii ugu horeeya inaan arki doono subaxdii inaan siinayo lacagtan. Adiga ayay noqotay qofkii ugu horeeyay, maadaama aan ku arkay adigana lacagta farta kaa saaray. Lacagtu waxay ku filnayd maamada dhowr sano inay masruufato iyadii caruurteeda. Shaqadii way iska daysay maalintaas xataa. Marka waxaan tan sheekadana tusaysaa, risqigu wuxuu ka yimaadaa meel aadan weligaada ka filanaynin. Adigoo istikfaar haddaa wadid iska wad. Maamada istikfaar carabkeeda unbaa u bartay, because carabkaaga hadduu iska barto, markastoo dhibaato yar ama ciriiri yar aad dareento, waxaad u ordaysaa istikfaarta. Marka subxaanallah, can you imagine maamadan iyadoo iska fadhida meel, ya Ilaahay muxuu maajiyey, qof dhan ayuu xaj ka baajiyey. lacagtiisii qofkaasheed wuxuu ku maskaxdiisa ku dhaliyay berito qofka ugu horeeya arki doonto ayay tahay maamadaas. Maamadii maxaa ku dhacday inuu baskii ka tago? Maxaa yeelay waxay ka tagtay boorsadeedii walletka lacagta ugu jirtay. Can you imagine waxyaalaha suu Ilaahay suu ka aadinayo hadduu kula rabo wax. Marka istikfaarta wax ajaa'ib leh, waa balan Ilaahay naga qaaday. Qisadan kaleeto, maamo ayaa waxaa lagu lahaa deyn 25,000 oo giniga Masriga ah. Muddo dheer ayay bixin weyday lacagtan. Bil walba waxay isku dayi jirtay inay mar walbaba bixiso, laakiinse rajo dhan way dhigtay. Wax xal ah way weyday. Waxay tiri mararka qaar waxaan ka baqi jiray inaan taleefanka kor u qaado, waxaan ogaa in la xasuusin doono deynta qof hadduu isoo waco. Maalin ayaa maamada loo sheegay fadliga istikfaarta, in uu qofka ku celceliyo maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhan, oo meel fiican gaarsiin doono. Markaasna meel kasta qofka soo joogana inuu ku aqriyo ay ku habboon tahay. Markaas ayay go'aansatay. Tijaabo iyada kama ahayn, way yaqiinsatay. Si dhab ah ayay u qaadatay taladaas. Waxay bilaabday maalintaas markay hurdada ka kacdo istakfirullah inay aqriso. markay qolka nadiifiso inay astaghfirullah samayso
markay jikada gasho waxay sameynayaan astaghfirullah, markay cunto karinayso astaghfirullah, xitaa markay ay socoto ama fadhiisato astaghfirullah. Musqusha intaysan gelin way joojin jirtay. waxay tiri caadi ahaan marka aan shaqo qabtaba waan heesi jiray awal oo maskaxdayda meel kale ayay ku wareegi jirtay, laakiin maanta carabkayga wuxuu ku mashquulaa hal eray oo keliya, astaghfirullah. maalintaas oo dhan waxay ku jirta marka astaghfar. ugu dambeyn markii ay tirisay xataa waxay samaysay in ka badan 100,000 istighfaar hal maalin gudahood. waxay seexatay iyadoo aan wax isbedel aysan arag, laakiin qalbigeedii uu degan yahay. isla maalintaas wax lama filaan ayaa dhacay. aabaheed ayaa soo wacay, wuxuu ku yiri waxaan go'aansaday inaan iibino hanti aan leenahay qoys ahaan, qaybtaadii dhaxalka waa diyaar. waxay la yaabtay arrintan yaab kale, arrintan weligeed misdheen aabaha ayaa wax bixinayo ama wax ku siinayo maysan filanin. waxay heshay 30,000 ayay heshay, isla markiiba deyntii way bixisay, welina lacagtii waxbaa u haray. waxay tiri iyadoo yaaban waxaan bilaabay istighfaar, maalintii xigtana deyntii waa laga bixiyey. markaas ayay fahamtay ma aha kaliya lacagta ee culayska qalbiga ka saarnaa xataa way ka baxday. aabaheedna wuxuu ahaa nin aad bakayl u ah oo waxba dadka dhihi, xataa wuxuu dhihi jiray aniga isuga uun markaad dhinto dhaxashiina markaasaa helaysaane, laakiin anigoo nool shilin idma siinayo. marka ilaahay amarkiisu ayadoo filanayn ayuu aabihii wuxuu go'aansaday inuu wax iibiyo ee qoyska lahaayeen, kadibna lacagtiyaa lasoo siiyey. xataa 5,000 dheeri ah ayaa ugu darsoontay. 25,000 keliya deynteed Soomaali 5,000 dheeri ah ayaa ugu darsoontay. subxaan allah. qisada saddexaad, qisadan waxa weeye wiil oo shaqo la'aan ahaa. wuxuu sheegay inuu guriga uu iska fadhin jiray, wax shaqo ahna muusan haysan. markasta uu shaqo codsado waa loo diidi jiray. waxaa la weydiin jiray dadka diintaadii mayaa xumeed ma dadaali jirin miya? markaas wuxuu yiri aniga diinteeda saas uma fiicnayn, waa iska cibaadaysan jiray laakiin saas uma fiicnayn. markaas ayuu wuxuu maqlay istighfaarta inuu risqi badan u keeno dadka. wuxuu go'aansaday inuu isaga ishagaajiyo. wuxuu bilaabay 5 salaadood waqtigooda inuu tukado. maalin kasta wuxuu bilaabay 1 juz oo quraan ah inuu akhriyo, istighfaar badan habeen iyo maalin inuu sameeyo. tani waxay bilaabatay bilowgii ramadaanka. maalin kasta wuxuu sameyn jiray 10,000 oo istighfaar ah, mararka qaarkood xataa wuxuu gaarsiin jiray 70,000. saacad gudaheed wuxuu dhihi jiray 10 jeer oo ah astaghfirullah. isbuucii ugu horreeyay wax isbedelay haba yaraatay ma jirin. wuxuu ahaa ninkii weli shaqo la'aanta ahaa oo 29 jirka ahaa, oona rabay inuu guursado, oona rabay guri inuu dhisto. shaydaankii ayaa wuxuu ku bilaabay inuu maskaxda waswaas u geliyo, waxba maadan helin, waa daashe, istighfaarta ha isku wareerin. laakiin wuxuu yiri waan sii wadayaa. kadib isbuucii ku xigay wax walba si degdeg ayay isku bedeleen, sidii waxa malaysa biyo soo fatahaya. mid ka mid ah shaqooyinkii uu hore u codsaday ayaa soo wacay. waxaa loo sheegay shaqadii waa lagu aqbalay, mushaharkaagiina waa 25,000 oo geni, sanad kastana wuu kuu kordhayaa, xataa waxaa leedahay bonus, sanad walbaba bonus ayaa leedahay xataa oo lacag dheeri ayaa lagu siinayaa. wuxuu ahaa risqigii ugu horreeyay ee lama filaanka ahaa. kadib wuxuu u tagay gabadhii uu rabay inuu guursado. waxaa lagu xiray shuruudo lacag badan oo meher ah oo dahab inuu keeno. intii lagu jiro ramadaankaas lacagtii meherka ayaa uga timid meel uusan filanayn. ramadaankii gudaheed shaqo ayuu helay, meherka ayuu bixiyey, meherkii waa loo xiray, guurkii waa shaqadiisa hawsha bilaabatay, gurigiina waa loo diyaariyey, gurigiina wuu diyaarsanayay. wuxuu fahmay risqiga ka yimid meel aan la filanayn, wuxuuna ka mid yahay istighfaarta joogtada darteed oo ilaahay ugu maciinay. okay, qisadii saddexaad waa idinku dheereeyey. qisadii afaraad, gabar ayaa muddo sanado badan meher ku xirnaa ninkeeda, laakiin guurka dib ayuu u dhacay. maxaa yeelay? sababta ugu weyneed waxay ahayd ninka muusan awoodin inuu guri diyaariyo. aabaha ninka dhalay sidoo kale muusan rabin inuu caawiyo wiilkiisa. wax walba si tartiib ah ayay u socdeen, marba waxbaa dhibaato imanayay. gabadhii aad bay ugu warsanay. waxay maqashay sheekooyin ku saabsan istighfaarta. waxay tiri anigu aan bilaabo istighfaarta oo aan niyad guur ah gashto inuu guurkayga ii hagaagayo. waxay bilaawday inay si joogto ah istighfaar u samayso maalin kasta. 5 maalmood kaliya kadib ninkii ayaa si lama filaan u soo wacay. wuxuu yiri aabahee baa caawiyo, gurigii waa noola diyaariyey, wax kasta waa dhagdhag. gabadhii aad bay ula yaabtay. waxay ogaatay in arrinta sanadaha qaadatay oo dhan 5 maalmood ilaahay ugu xaliyey. waxayna fahamtay arrintu meel aansan filanayn ayaa irsaqa ilaahay uga soo furay.
وأنا استغفرت درت سبحان الله. qisadii ugu dambeysay gabar jaamacad ayay ka qalin jebisay iyadoo rabta shaqo ku habboon waxbarashadeeda, laakiin gabadhan waxay ahayd gabar qisooyinkan hadda aan sheegayno weligeed maysan aaminsanaan jirin. waxay dhijirtu waa khuraafaad, waxaanay views ku raadsanayaan, aniga kuley wax maana arkin. markii gabadhii waxay rabtay shaqo, waxay rabteen oo fiican oo iyada istaahisha oo takhasuskeeda ku xiran. waxay codsatay meelo badan ayay shaqooyinka codsatay, laakiin waa loo diiday. shaqooyin dukaamanka yararka caadiga ah bay bilaawday inay iska shaqaysato halkaas. taasi laakiin ma ahayn riyadeedii. waxay maqashay istikfaarta, markaas ayay go'aansatay. waxay tiri waan iska bilaabayaa, maxaa I have nothing to lose, wax aniga maanta iga baaba'ay ma jiro, aan ahayn waqti waa samaynaya. waxay bilowday marka istikfaartii si joogto ah inay u samayso. muddo yar kadib shaqo weyn ayaa uga timid internetka online. waxay ahayd Facebook inay ka hesho amaynaa shaqo. shaqadu waxay ahayd mid qoraal oo teeda ku habboon oo xagga warbaahinta, waana shaqo weyn oo waxay ahayd kambani caalami ah, shirkad oo cajaa'ib ah. waxay heshay mushahar aysan weligeed ku riyoonin, wayba kasii badneed inta iyada filanaysay. shaqadan waxaa kasii fiicneed gurigeeda iyadoo joogta ayay shaqadeeda qabsanaysay. maasha allah, maysan u baahnayn inay labisato ee maalinba shaqada u kala hado. lacagtana sida durdur ayay ugu socotay. waxay ogaatay marka shaqadii ay muddo raadinaysay si lama filaan ah ayay ugu timid. subxaan allah. marka sheekooyinkan markaad dhegaysato maxaad dareemaysaa? maxaa qulubtaada aad dareemaysaa sheekooyinkan markaad dhegaysato? hadda sheekada ninka dhahaya 100,000 ayaan sameeyey, 100,000 oo istikfaar ma awoodaa? hadda qisadii oo aan ka hadlaynay wuxuu dhahay saacadii 6,000 ayaan sameynayay, 6,000 oo istikfaar ma samayn kartaan? taas ma la awoodaa? bal iisoo sheego. marka qisadeena marka intaas ayay hadda ku egtaa, laakiin maxaan ka qaadan karnaa cashir ah? ha joojin istikfaar. waxaa loo baahan yahay consistent inaad wadid. haddii aad rabto risqi kuu yimaado meel aadan ka filanayn, markaas sidii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay, ku adkayso, gacmaha kula dheg. ma aha mar kaliya oo firaaqo leedahay, iska wad uun. istikfaarta ha ahaato wax joogto ah, haddaa firaaqo tahay iyo haddaa mashquul tahay. xataa ha tirin haddaa rabto, waxaad samayn kartaa adiga hooshaada wadid iska akhri uun. carabkaa ka dhig mid qoyan oo xuska allah wad. marka insha allah intaas ayay noogu eg tahay qisooyinkeena maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullah.